barnaamijkan ujeedadiisu waxa weeye saddex arrimood kow in kor loo qaado damaanadda cuntada isla markaana iyadana kor loo qaado isticmaalka cuntada isu dheelitiran ama balance diet ka leeyahay marka labaad maadaama oo shaqo abuur badan loo baahan yahay dadkuna khayraadka ay haystaan kaliya ta inay ka intifaacsadaan oo ay wax ka soo saaraan ay shaqo abuur ku heli karaan waxa loogu talagalay in kor loo qaado shaqo abuurka arinta saddexaad waxa weeye in iyadana la kobciyo khayraadkeena aan dibadda u dhoofinayno si aynu helno hard currency ama lacagta qalaad inta badan aynu gashiga ku soo gadano arinta kale waxa weeye wixii aynu soo dhoofsan lahayn inaan wadanka gudihiisa inagu kana soo saarano kobcino productivity-ga wax soo saarkeena si aynu uga maarano lacagta qalaad ee faraha badan ee inaga baxda waxaynu soo dhoofsinayno si guud wadanka waxa lagu tilmaamaa inuu yahay Afrika wadanka ugu xoolaha badan caalamkana wadanka lixaad baa lagu tilmaamaa wadanka gudihiisa marka la eego geela 8.1 ayaa lagu qiyaasay in wadankeena ay ku nool yihiin boqolkiiba 80 geela wadankan ku nool wuxuu ku nool yahay deegaanka Soomaalida looda waxaynu kaga jiraa kaalinta afraad waxay naga horeeya Oromada waxay naga horeeya Sidaamada waxay naga horeeya Amxaarada inagu looda waxaynu kaga jiraa kaalinta afraad wax soo saarka caanaha marka laga hadlo sanadkii hadda ugu dambeeyay ee 2014 waxa lagu qiyaasay caanaha geela ee deegaankeena wadanka guud marka la eego inuu ahaa ilaa iyo 1.8 billion 1.5 billion liter deegaanka Soomaalida ayaa lagu qiyaasay in laga soo saaray waad garan kartaan marka boqolkiiba 80 ayuu noqonayaa si guud digaaga wadanka waxa lagu qiyaasay 57 milyan waxaana lagu qiyaasay inay soo saaraan 300 inaga xaggeena 57 milyan marka la barbar dhigo 300 oo kun oo ukumood ayaa xaggeena laga soo saaraa oo 1% ka noqonaya marka waxaan rabaa inaan isbarbar dhigno geela deegaankeena boqolkiiba 80 caanaha geela laga helo deegaankeena laga soo saara haddii digaaga aan eegno 1% ayaynu ka noqonaynaa digaaga guud ee maaragtay wadanka ukunta laga soo saaro ama laga helo haddii la eego malabka 2.5% baan ka nahay marka wax soo saarka malabka iyo wax soo saarka digaaguba deegaankeena aad buu hooseeyaa waana wax loo baahan yahay in la kobciyo kor loo qaado marka inta laga tago barnaamijkan aad halkan isugu timaadeen ujeedadiisu waxa uu noqon doonaa inaan dhaqan gelino oo ballan aan qaadno oo aynu wixii hadda ka dambeeya qorshe 4 sano ah oo ka bilaabmaya 2015 baa la dhaadhicinaya gobol walba iyo degmo walba ay targetkeeda ay qaadato